Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si rasmi ah uga furmay bandhig loogu magac daray Bandhigga Shaqo Abuurka ee Baydhabo, waxaana barnaamijkan iska kaashanaya Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha iyo Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay wasiirro, ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo, waxaana qayb ka ahaa shirkado iyo hay'ado ka shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Bandhiggan intuu socday waxaa meesha ay ku soo bandhigeen shirkadaha iyo jaamacadaha iyo hay'adaha ku casuumnaa barnaamijkan shaqooyinka shaqo abuurka ay ka qabteen deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo shaqooyinka ay hayaan, iyo sidoo kale jaamacadaha waxay soo bandhigeen buugaagta iyo qaybaha kala duwan ee dhanka tacliinta. Waxaana bandhiggan loogu magac daray Bandhigga Shaqo Abuurka Baydhabo qayb ka ahaa fanaaniinta xidigaha Janaawke oo ka dhisan magaalada Baydhabo, waxaana ay meesha ay ku soo bandhigeen suugaano ay ku dhiirigelinayaan dhalinyarada shaqo abuurka. ugu horeyntii ayaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah jaamacadaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta oo ku casuumnaa barnaamijkan. fursado shaqada jirta laakiin qaabka la bilaabtiin isu ogaada shaqada meel ku jirta yaa la isku teegaynin qodobka labaad ogaanay ku bilaabay dhalinyarta in skills la baahanay laga meergaase master degree hadama hatta dibaddu ama baaja hadama ay Soomaaliya ama Baydhabo ما يكون موقعنا ولا إرادة employability skills أما حرفتي وسشاقة كرادي فريق أو recruitment process إسكو مرة فديوه إنه interview للمقابل إنه ورئيسي كلو شاقة الحرير إنه مقابل إن بعض ما يدياس جامعتنا ما تبرد من بعض حرفة كارا soft skills هاي وحنا كالعقبة هو ما يكون بده إنه finance إنجرنا سوق البيئة نشوف قوية لك شغالة يسيو وزارة هذا تمام all specialists in Baydhabo كنت مشروع عمل رئيس أولي بي شقة مورده مدة كده سنة ليش شقة هاي بنبقى كريم وينا تشقوين بدن أول بدن أول توبرها فيني يا هذا ما شاء الله نور فيلا شقة فيلا كجران especially بيبقى قرينا باهم بيلو بجرتي أو يونا هاي ونضبط ميدا. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay bandhigga shaqo abuurka Baydhabo. maanta dhalinyarada oo sideedka ah fududahay ku soo qabso oo horaya asnaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dhalinyarada shaqeeya dhammaantood iyaga sameeyay ولقد هاي حكوا هذولك في برنامج النفور واللي هو الاسم جلا ونين نفسحنا وزيرة الشركة وجل وكل نبقى نفور نسين الجوب لا البرنامج تما وزيرة لكن شقوي هذا وجل كذا شقوي كسان بها نبقى ولسين بعثنا نجين نفسحنا برنامج النفوري هذا الناس من سلام عبد الله محمد عبد العفاني تلفزيون كعالمي غير تي في مقالة بيضاء.